aynu ka horeyna jabka ugu weyn ee dawladda Kenya kala kulmi doonta haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ayaa la shaaciyay dawladda Kenya ayaa si rasmi ah u bilowday horudhaca wada hadallo ay ku rabto inay kula baxdo ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya u jooga arrimaha nabad ilaalinta wargeyska lagu magacaabo Confederation ee inta badan baahiya falanqeeyana arrimahaas ayaa qoray warbixin uu ku muujinayo jabka dawladda Kenya ka soo gaari kara haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabaha ay kala kulmi doonto in ciidamadeeda ay dib ugu celiso dalkeeda warbixinta ayaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay jabka ugu weyn kala kulmi doonto haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya taas oo ay la kulmi doonto awoodii ciidan iyo sidoo kale midii diblomaasiyadeed ee bariga qaaradda gaar ahaan midda gobolka Geeska Afrika inay lumin doonto qorshaha bixitaanka ciidamada Kenya waa fursad weyn oo noqon doonta ciidamada Ethiopia ee ay ka wada tirsan yihiin howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta iyadoo la saadaalinayo in Ethiopia ay saameyn weyn ku yeelan doonto gudaha Soomaaliya xogeysiga Ethiopia ee gudaha Soomaaliya waxay gogol xaar u noqonaysaa bixitaanka ciidamada Kenya waxayna horseedi kartaa awoodda ay dawladda farmaajo ku sii joogayso talada dalka isla markaasna ciidamada Ethiopia u adeegsan doonto mucaaradka iyo warbaahinta ka soo horjeeda ee siyaasadeed sida lagu xusay warbixinta wargeyska dhinaca kale tan warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay guulo waaweyn ka gaareen baajinta weerarada qorsheysan iyadoo hadda ay muuqato inuu gabaabis weyn uu ka jiro hadafka koobaad ee nabad sugidda walow ay al-shabaab ka qabsadeen deegaano dhowra ciidamada Kenya ayaa sanadkii 2011 gudaha u soo galay Soomaaliya waxayna ku guuleysteen inay lumiyaan awoodda al-shabaab ee magaalooyin waaweyn ee dalka iyagoo qayb weyn ka qaatay howlgalkii cusla ee gacanta argagixisada looga saaray magaalada Kismaayo oo hadda xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland qorshaha ay dawladda Kenya ku doonaysan ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya ayaa ku soo kordhayso nacaybka ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan oo sare u kacay isla markaasna sii xoogaysay xifaaltanka kala dhaxeeya Ethiopia oo ay saaxiibo dhow leeyihiin madaxweynaha talada haya iyo sidoo kale sida dawladda Kenya looga saameyn bantay gudaha Soomaaliya marka loo eego xiriirka Ethiopia kala dhaxeeya madaxda dawladda Soomaaliya sidoo kale waxa qorshahaasi uu ku soo aadaya xilli ay dawladda Kenya wajahayso weerar kaga imaanaya al-shabaab iyadoo wargeys ku sheegay in ka bixitaanka Soomaaliya ay badbaado u noqonayso nolosha bulshada iyo kheyraadka dalka Kenya sidoo hadalka u dhigay waxa la filayaa inay dalka gabi ahaanba ka baxaan ciidamada dalka Kenya sanadka soo socda 2021 hadaysan wax iska bedelin qorshaha ay ciidamadu uga howlgalayaan gudaha Soomaaliya isla markaasna dawladda Kenya iminka qorsheedu uu yahay in ciidamadeeda ay guud ahaan faaruujiyaan Soomaaliya marka la gaaro 2021 dawladda Kenya ayaa waxa dawladda Soomaaliya kala dhaxeeya khilaaf weyn kaas oo ah mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid la isku haysto arrimaha badda ee Soomaaliya qoray oo lahayd balse Kenya ay ku qabsatay taasoo maxkamadda caalamiga ee ICJ iminka hortaala lana filayo inay go'aan ka gaarto iyadoo dawladda Soomaaliya dhowr jeer ku eedeysay Kenya inay faragelin qaawan ku hayso dhulka Soomaaliyeed isla markaasna ay ku dhaxmilanta siyaasadda gudaha dawladda Soomaaliya kuna eedeysay inay garab siinayso maamulka Jubbaland oo aysan dawladda Soomaaliya aqoonsaneen madaxweynaheeda